اوكي هذا انت سبقت ولا تفاصيل عرض الصومال دكتان او قف اما دان او جيسو ام maxaa ay sheeg cayl oo geyso jecel yahay maadaama aad tihiin dadkii wadanka u baranayay qaarkiin ay barteen maadada technology-ga sida maadooyinka science-ka maxaad isleedihiin bal wadankiini oo aan ognahay xaaladdu ku sugan yahay aad kaga badashaan ama aad ku biirsaan waxyaalaha aad barteen waxaan rabaa arday si kooban uga hadla hayajihan bal maxaa adiga aad ka leedahay wadankiina wuxuu ku jira xaalad loo yahay waxaan tiin ardayda wuxuu baranaysay badalka India ku sugan adigoo wala bartay waxyaalaha adduunka laga barto kala duwan maxaad leedahay ku biiri kartaa wadankaadi hooyo sidaas ma كنت قف كسر بالآدم وأنا جعلها مهانتي إن wadankeena u qabano isla markaana ardayda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxay barteen waxyaabo kala duwan waxyaabaha ay barteen hadda wadanka ula noqdaan wax badan ay tirtirto أكثر مستحيل كتارو أو حياتها سيد أقول نقول كتار وضنكي أنا برجع إلى وقت قبل وضنكي ضد مخصص على سيد الفيل هسه أردت لدون أخوان توها سر إناس وباه وضنكي أيضا أباهي يجرا يكون نور قربها سلام كان كاسن أيودنكي إيش وضنكي سواء من درا أولد لو تفرون إذا كان سيد بنوال عادية حقق جفتوا وضنكي si loogu noqon karo meesha uu taado ardayda anaga la mid ah oo ku nool wadankeena aad dhibaato badan ku sugan qaar si kari wadila inay waxbarashadooda ay wadaan qaar dhibaato badan ku haysto waa la mid nahay waan u baahanahay wadanka inaan wax badan kala qaybsano laakiin amaan darad dirta awadeed aan xatankii waxaan la qabsan karin dhaqaatiir badan oo wadanka dadka ugu nugul oo Soomaalida inuu dhibaatada hadda ka jirta la rabo inay xaliyaan oo dadka dhaawac ahay inay daaweeyaan rabaan anaftooda u soo cad way ay soo cad ma aha wadankooda inay neceb yihiin ma aha wadankooda inay wax qabtaan inay neceb yihiin ma aha in wadanku u baahneen ma aha in ayaga ay u baahneen laakiin amaan daro in nabaddarro jirta aawadeed ay ku kaliftay aan leeyahay in maxaa lahaa aday wax baratay ee wadankooda wax ugu taraan ayaga naftooda wax ugu taraan ma la yaab dhow markaan ay saaranta diiradu aniga waxaan ku madareeyaa waxaan misalaa qof kasta oo ardayda Soomaaliyeed oo bartay inuu wadankiisa ku noqdo waxyaabo badan oo faa'iido sanadyo badan oo isku jirnaa waxyaabo badan oo baranay wadankeena intuu loo baahan yahay in lagu laabto wax kasta ku jira waxaa laga dhawaajay wadankeena in aan magaalada waxyaabo iska jiraan laakiin wadanka markasta uu soo baahan yahay oo wadankaani ardayda caafimaadka baratay oo loo baahan yahay wadanka noqdaan kuwa maadooyinka biikomta oo kala bartay iyo bisi ee loogu baahan yahay wadankii dadka wax ka bedeli karana oo ka saari kara dhibaatooyinka ku jiraan oo dadka wax bartay iyo dhalinyarada marka aniga wax kale kuma dareeray waxaan dhihi lahaa wadanka badan noqdo waxna ha loo qabto qof kasta wax bartayna adlist jaamacadaha iyo iskoolada ku jira Soomaaliya macallimiina ku noqdo wadankeena in loo noqdo إبراهيم وسؤال أدنى ما سؤال شنو وديسي محط وقبان كرتان ودنكي محط كبدلي كرتان هدي الله بتان وحبر شديدي وسؤال بيرين برضه يعني رهانتي مكان في أركتيلي لا وحنا جينا إن شاء الله أنا واحد بدل كبدلي كرنا لا جعمه وحده وذا جلبي اللي بيقويان أما وذا جلبي وحقوق كرتان وحنا هذا سيد أخذ واجي سيد بقول إلا يكون أرضي ما سهل سيد بقول ونمبر وين marka numberkaas oo different macnaha fieldiya kala duwan ka yimid aday qaar ka yimaadeen xagga ganacsiga qaar aday ka yimaadeen xagga managementiga qaar aday ka yimaadeen xagga caafimaadka qaar oo dhinac walba ay tahay waxay ila tahay waxa inoo haray oo kaliya inaan wax dhanka policy-ga waxa la hogaamiyada Soomaaliya waxaan ka codsanayaa iyaga laftooda in dhanka xalka iyo wanaaga ay wax ka fiiriyaan bal inagana aqoonta aan wadno inaan la tagno wadanka waayo qofku markuu wax baranayo wuxuu wax u bartaa wadankiisa inuu wax ugu qabto asagana wax ku qabsado marka maadaama su'aashadeed maxaad wadanka u qaban kartaan qof kasta oo inaga mid ah marka aan la sheekaysta ardayda Rabaad waxa uu jecel yahay maalinta dhameeyo digrigiisa ama masterkiisa inuu sida uu dhaqsiya badan ku laabto wadankii waayo wuxuu ka yimid wadan u baahan isaga wadan burbursan haddii uu noqon lahaa macallin ama haddii uu noqon lahaa shaqaale ama haddii uu noqon lahaa mid creativity ah ee wax alifa ee hindisa ee marka waxa uu hindisay ula laabto mujtamaca tusaale haddaan soo qaadano wuxuu ka dhawaajay walaalkii dibaan xilliga hore in India ay tahay wadan teknolojiyada xagga ku horumarsan xagga IT ah marka haddii xitaa al-aqal wadankii nabadgelyo jirin laakiin in aan la kaashano guruubo kale
aan sameyno kambaniyo ama associationo macnaa la xiriira India ka qaata contract waddanka ula laabto waxay ila tahay xataa idin lifti waa horumar business dhaqaalada waad ka samaysanaysaa wixii aad barataan waddankaaga aad ku laabanaysaa marka waxaan jeclahay ama aan ku boorinayaa haddii aan lahayd ardayda iyo haddii aan lahayd dadka Soomaaliyeed ay dhageysanayba in ay u fekeraan arday ogaadaan inay jiraan dad badan oo haminaya waddankooda inay u laabtaan kula laabtaan wanaag iyo wax ay barteen haddii aan tusaale usoo qaato fiiliga caafimaadka maadaama aan ahay maada ahaan hadda aniga waxaan qaatay maada specialitygeedu uu yahay health information administration and hospital management marka loo fiiriyo waddankeena Soomaaliya ma lahan takhasusad speciality health information marka ugu horeysay aan dhameeyo hadduu ilaahay idmo waxaan rajaynayaa in aan office ka furan doono waddanka Soomaaliya si mujtamaceeda macnaa baahida caafimaad ay jirta aan uga qaybsado waxaan rajaynayaa in ilaahay uu garab galo biidhnillaahi kariim rag badan ama asxaab badan aan ku leeyahay rag iyo dumar baan iraada magaalada Hyderabad inaan hore usii kaxsan doono okay ka hadlay saaxiibadey ma filayo inaan wax badan kusoo dari doono laakiin waxaan micnaha aan u dalbaday inaan ka hadlo inaan ardayda Soomaaliyeed u sameeyo ama aan u soo jeediyo dhiirigelin in uu yahay qofka ardayga keliya qofka wax ka bedeli kara waddanka ama waddankiisaba waxaan rabay mithaal yar inaan usoo qaato waddanka Hindiya oo hadda maanta dunida laga aaminsan yahay inuu yahay waddan horumaraya developing country waxaa jirtay xilli oo telefonka mobilka ama telefonada khaasatan mobilka markuu qofka waco ee lacag ku socon jirtay marka qofka la wacayna ay lacag ku socon jirtay marka waxaa isbeddel u keenay arday wax ka soo bartay waddanka Mareykanka oo soo bartay engineering and communication engineering electronic and communication engineering wuxuu jaanis u helay nasiib u helay inuu noqdo wasiirka communication marka annagana waxaan filayaa inaan la midnahay ardaygaasi ku fikiray inuu waddankiisa isbeddel u keeno xaqiiqatan xataa waxaa lagu leeyahay leelaynka qofka markuu u baahan yahay taleefanka leelaynka saf baa loo geli jiray 2 years ama 1 year ka hor ay waxay ahaan jirtay in la booking garaysto oo la dhaho taleefon baa u baahana maantana waa ogsoonahay xaaladda ee maraysa Hindiya taleefanada in free laysku waco mobilada tartan badan inuu ku jiro marka ardaygaasi wuxuu ahaa arday jeclaystay inuu waddankiisa isbeddel u keeno annagan inaan la mid noqono ardaygaas oo kala camal oo isbeddelka u keeno waddankiisa wuxuu noqday wasiirka ugu kalsoonida badan baarlamaanka dhexdiisa wuxuuna ahaa wasiir daayar oo aad iyo aad u daayar marka waxaan jeclahay dadka wax barto oo dad aad u daayar waddankoodana wax ka bedeli kara maanta waddankooda u baahan yahay marka anintaasaan jeclaa inaan ku daro oo jawaabo ahayd assalaamu calaykum